kulanti ismaqal wanaagsan oo suuban saaxiibayaal soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan soo gudbinaynaa casharkii 6aad 59 cashar oo kan ka horreeyay baan idinla wadaagnay casharkeena maanta aad buu u kooban yahay laakiinse wuxuu xambaarsan yahay xog ay muhiim tahay inaad ogaatid taariikhda miilaadiga maanta waa 19 July maalin Isniin 2021 sidoo kale taariikhda hijriga waa bisha Dulxijja oo 9 waa maalinka Carafa 1442 maanta Carafa oo maalin barakeysan waxaan rabbi ka rajeynaynaa in Ilaahay naxariistiisa raxmadiisa inuu camimo inta hadaan ka sii gudbo saaxiibayaal casharkeena baan qaadanaynaa oo soo hormarsanayna kadibna xogta iyo xaalad waranka muuqaalka qaybtiisa dambe baan ku soo gudbinaynaa marka aan wada socono buu ise where are you xagee ku sugan tahay ama xagee joogtaa ama kumee oo kale ime istiduliya I am at work waxaan ku suganahay shaqada ama waxaan joogaa shaqada dulia kanis what do you do for a living saaxiibayaal Inglishaan waxay ku noqonaysaa nolol ahaan maxaa qabataa oo ku shaqaa sidoo kale Greek waxay ku noqonaysaa waa maxay shaqadaadu ama shaqo noocee baad qabataa sidoo kale waa la oran karaa maxaa ku shaqaa ime das close I am teacher waxaan ahay macallin ime mathematics I am student waxaan ahay arday casharkeena oo koobnaa saaxiibayaal halkaas buu ku egyahay 59 cashar oo kan ka horreeyay wuxuu noqonayaa kan casharkii 6aad sidoo kale wuxuu ahaanayaa casharkii ugu dambeeyay oo aan soo gudbino kuna saabsanaa luqadda Greek sida caadiga qorshe kasta oo barbilow ah ama la bilaabo wuxuu leeyahay yoolal iyo ahdaaf loogu talagalay in la gaarsiiyo ama ku talagal loo asteeyay dhamaadkiisa annaga maalinkan soo bilaabayna casharadan qorshayga waxa inaan 60 cashar gaarsiino alxamdulillah hadafkayga barbilowgiisii wixii aan asteysanay ama meesha sumad noo ahayd baa maanta rabbi noo saldhigay runtiina waxay noo tahay guul aan ku diirsanayno waxaana marna aan ilaawi karin dadkii bilgahay sharafta lahaa ee nagu taxnay duruusteena isku dayay hadba sida ugu sahlan ay uga faa'iideystaan runtii waa dadka halkaan soo gaarsiiyay Ilaahay ka sokow xaqiiqatan waxay noo ahaayeen shidaalka aan ku shaqeynayno runtii dhiirigelintiinu waxay inoo ahayd mishiinka mar walba na dhaqaajiya kuni coacher idinku isku duuban waxaan leenahay mahadsanidin inta hadaan ka sii gudbo waxaan filayaa ama qiyaasii casharadan soo gudbinay dad badan ay ka faa'iideysteen ugu yaraan qofka aan waxba ka faa'iidin waxaan filayaa luqadda Greek inay wax uga iba furmeen ama wax uga bikaaceen saaxiibayaal shaqo kasta oo la qabanayo khasab mar walba qumbacasho iyo qaloocad waa iskaga jira dhammaan casharadan soo gudbinayna waxaan ku dadaalanaa sida tahay inaan soo tafatirno oo wax xaqiiqa oo nolol saxan inaan idinla wadaagno taas macnaheeda kama dhigna dhammaan wax kasta aan soo gudbinay waa lagu malaabtaan dabcan waa suurtagal inay wax naga khaldameen waxaan rajeynaynaa wixii naga khaldameen noogu cududaartaan wixii idinla saxnaadana inaad noogu wanaag haysaan wax kasta oo wanaagsan ay idin soo gudbinay saaxiibayaal tawfiiqdi waafajinta rabbi bay ka ahaatay wax kasta oo naga khaldamayna naftayada iyo shaytaan bay ka sugnaatay mar kale saaxiibayaal waanu xaaji Yuusuf waxaan leeyahay marna guusha ka rajo dhignina like iyo subscribe iyo share na isku soo celin ka rajaynaya salaamka idinka taga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh